بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا حلقة سجالات كورس كانوا جمع درني سيدي بانو نقد قف مثقفة أما أقول يهنا أما أنا كنت دورسا حلقة وحن جعلها هنا كيش كي موضوع مهم أدنى نو جعلها إن مثقفين تنا أيين موضوع يسيف عن أولنو ليين وحوي وسيابا وحلو أقرية إن حبابك وحلو أقرية تباه وحلو أقرية maadaama xalqadu ay kooban tahay waxaan isku dayayaa inaan inta ugu muhiimsan idiin tilmaamo qofku markasta uu la noolaado ama wax ka ogaanshaha uu ku hawlanaado wax ka ogaanshaha iyo baadhida iyo wax ka akhrinta mawaadiicda la xiriira sida wax loo akhriyo tabaha akhriska waxa ay tahay in la akhriyo iyo mawaadiicda la midka ah waxa hubaala inuu saaray cagta saaray dhabadii maalin uu uga mid noqon lahaa dadka aqoon-yahanka ah waayo qofka aqoon-yahanka waxa sameeya ugu badan waxa weeye waxa akhriyo weeyaan habkii uu akhrinayna qofkii inuu ogaado aad bay muhiim u tahay dhowr arrimood maadaama xalqadu ay koobanta dhowr arrimood muhiim ah rabaa inaan ku tilmaamo kood waxa qofku inuu ogaado hababka wax loo akhriyo ama aan ku horeysiiyo dadku si wada wax u akhriyaan afar nooc bay wax u akhriyaan aqoon-yahanka labada arrimood saddexda qaybood ee dambe ayaa aqoon-yahanka dhiga qaybta hore waxa weeye dadku inay waqtigiisa lumiyaan ama ay waqtiga ku dilaan ama ay xaalada markaa haysta ee uga dhex baxaan ay uga dhex dhuuntaan akhriska daraadii oo marar badan waxa weeye hab entertainment-ya ayaa wax loo akhriyaa buugta inta badan waa buugta fictionka iyo buugta la xidhiidha buugta labaad ama habka labaad ee wax loo aqriyo waxa weeye inuu qofku macluumaad raadinayo macluumaad cusub inuu raadinayo tusaale maanta waxaad rabtaa inaad ka ogaatid geopolitics waxa uu yahay ama waxaad rabtaa inaad ka ogaatid falsafada waxay tahay ama waxaad rabtaa inaad ka ogaatid principles of history mabaadi'da taariikhda lagala soo baxo inaad wax ka ogaato waa hab qofku uu wax u aqriyo ah inuu wax ogaado uu macluumo raadiyo habka saddexaad loo aqriyo waxa weeye macluumo qofku uu yaqaanay inuu wax ka sii ogaado tusaale kale falsafada qeexalkeeda iyo laamaheeda wax ka ogaatid laakiin waxaad doonaysaa inaad si cumqiya u sii dhex gasho falsafadii jiray afkaartii isku hayeen taariikhdii afkaarta ay soo martay arrimahaas dhan martay inaad ogaatid waxa weeye aqoontii markii hore aad lahayd ama macluumaadii markii hore aad haysatay ayaa doonaysaa inaad sii siyaadisid waa habka saddexaad ee wax loo aqriyo waana hab aad u wanaagsan oo ay culimada ama dadka muthaqafiinta inta badan ay la nool yihiin kaliya ma aha dad waqtigooda inta badan ku lumiya wax akhris walow wax akhrisku wanaagsan yahay haddana wax akhriska inuu ka tilmaamayno qofka muthaqafka ka dhigaya maaha ka ugu horeeya ka labaadna marar badan ma aha saddexda walow aan yidhi saddexda ugu horeysa saddexda ugu dambeysa weeye haddana labada ugu sii dambeysa ayaa ugu sii sarreysa habka afraad ee marka qofku wax loo akhriyo waxa weeye in qofku wax intuu u akhriyo inuu wax sii gudbiyo inuu kitaab ka qoro inuu muxaadaro ka jeediyo inuu tababar ka qabto inuu xalqooyin ka duubo inuu naftiisa ku dabaqo waa arrimaha waa habka ugu sarreysa ee ugu quruxda badan ee xogta ugu fiican iyo waxtarka ugu fiican laga dheefo qof ka dheefo waxa weeye waa taa afraad weeyaan marka qofka aqoon-yahanka aynu doonayno inuu soo baxo waa qof ugu yaraan saddexda hab ee ugu sarreeya wax ku akhriya haddii uu taa ka sii badin karayo inuu labada ugu dambeeyo wax ku akhriyo labada ugu dambeeya inuu wax u akhriyo inuu macluumo cusub macluumo uu yaqaanay inuu xog badan kasii raadinayo aadba maanta macluumaad aad u fara badan oo haysanaa jira cadaaladdu waa maxay maanta federaal buu in badan Soomaalida deegaamada ay qaateen waa maxay federalismka waa maxay cadaaladda waa maxay sinaanta siyaasadda iyo waxyaabaha la xidhiidha maanta waxyaabo badan oo inta caamada ay ka taqaano ayaa in badan oo kamid ah mawaadiic fara badan ama macluumaad badan oo haysano inta caamada ka taqaanaan ka naqaana la qofku si muthaqaf u noqdo wuxuu baahan yahay inuu si cumqi u sii dhex galo wax ka sii baaro geesinimadu waa maxay jacaylku waa maxay waa maxay علم نفسي ما حد كسي تقانا علم بالشدة ما حد كتقانا هذه ذاك عابدة مسكوت بكتين مثل معلومات لهذا أي أقون
usii leedahay. waxaan kaloo rabaa maanta ku tilmaamo xalqadan inuu qofku ogaado afarta nooc ee wax loo akhriyo. taa waxa weeye afarta hadaf ee wax loo akhriyo tilmaanay, laakiin afarta nooc ee wax loo akhriyo kutubtu isku wada mid ma aha. kutub waxaa jirta kula level, kutub waxaa jirta ka level sareysa, kutub waxaa jirta aad u baahan tahay inaad ma aragtay si scheme inaad u dul cararto, kutub waxaa jirta ay tahay inaad la noolaato ku celceliso. marka buuggan nimanka la yidhaahdo Adler iyo Van Doren buug aad u qiimo badan oo wax jira ay qoreen oo la yidhaahdo how to read a book. ciwaankiisa guud markaad eegtay buugga waxaad isleedahay buugga basiid iskaga maraysa, laakiin gudihiisa markaad u gasho waxaad ogaanaysaa aqoon fara badan baad ugu tagaysaa oo akhriska ku saabsan. qof walba oo doonaya inuu muthaqaf noqdana buugga inuu akhriyo aad baan ugula talin lahaa, iyo buugta la midkaaba. waxay ku tilmaamayaan buuggooda laba nin oo falsafadana dhigi jiray bay ahaayeen jaamacadaha Mareykanka ah. deetana markii dambe dhalinyarada akhriska inay ku dhibayin arkay u qoray buuggan. waxay tilmaamayaan afar nooc oo wax loo akhriyo inay jirto. elementary reading oo ah qofku inuu jumlada isku xidhi karayo, oo qofka akhriskiisa bidaayiga uu yahay. laga yaabo luqad cusub markaad baranayso inaad martid marxaladaas, laakiin af Soomaaliga intiina wax ku akhrisa, intiina Ingiriisiga wax ku akhrisa, Carabiga wax ku akhrisa, marxalada ay wada dhaafnay. waa marxalada qofku uu sentence level ama jumlad level heer jumladeed uu qofku ay tahay inuu fahmo macnaha ay jumladani gudbinayso. heer nooc labaad baa jira oo levelka ka sareeya oo ku tilmaamay inspectional reading. waa nooc labaad weeyaan. inspectional reading buuggiisi cumqiga uma dhexgelaysid, kaliya waad halacsanaysaa si sarkaxaadaysa ama dulkaxaadaysa ayaad buug u akhrinaysaa. waxaa laga yaabaa ciwaankiisa inaad akhrisid, faariskiisa eegtid, deetana aad qodobada ama paragraafyada ugu horeeya chapter walba aad ka eegto, khulaasaadka waxyaabaha kusoo gabagabeynaya conclusionada wax ka akhrisid. waa hab halacsiya oo qofku doonayo buug inuu aragti inuu ka qaato uu akhriyo. iyo buugta sidoo kale waxaa loo akhriyaa mawduucaad wax badan kaad akhrisay, buugta cusub ee soo baxday waxaa laga yaabaa fikrad iyo laba kaliya inay ku jirto ka anfacaysa, laakiin waxa kale baad aqoon u leedahay. markii mar rabtiin inaad waqti badan isaga lumiso waa si sarka xaadis ah oo schemina oo inspectional ayaad u akhriyaysaa. akhriska nooca saddexaad waxa weeye analytical reading. buugta qaar sidii Francis Bacon oo odhan jiray, buugta qaar waxay u baahan yihiin in la dhadhamiyo, buugta qaar waxay u baahan yihiin in la liqo, buugta qaarna waxay u baahan yihiin in la calaaliyo. bimacnaa buugta qaar waxay u baahan yihiin in la dhadhamiyo oo waxa weeye chapter iyo labo iyo wax yarood u baahan tahay baad kala baxaysaa, waayo muhiimku maaha buuggan, ama xogta ku jirta wax badan baad ka dheregsan tahay, wax yar baad doonaysaa inaad kala baxdid. buugta qaarna waa la liqaa, sheekafaneedka iyo kutubta la midka ah iyo siyarka waxa weeye kutubta inaad wada liqday u baahan yihiin, wax badan oo gorfeena kaaga ma baahna. buugta saddexaad waxa weeye in la calaaliyo oo la ruugo ayay u baahan yihiin, waayo buugta waa buugta u baahan in aad qoraaga la doodid, afkaartiisa kala shaandhaysid, indha naqdiya ku eegtid, wax ku riyaaqdid, walidaalika waxyaabaha muhiimka waxa weeye qofku markuu buug akhrinayo ama buugu haysto nusqada inuu soo ku dul ciyaaro, uu wax ku dul qorqoro, qoraaga kula doodo, meelaha uu ku waafaqsan yahay wax ka qoro, maarta ku taageero, meelaha uu doonayo inuu ka soo horjeedo aragtidiisa ku naqdiyo, qoraaga laftigiisa su'aalo inuu weydiiyo oo buugga dhiciisa ku weydiiyo. marka waa analytical reading. qayb afraad baa jirta oo ay ugu magac dareen syntopical reading. syntopical reading waxa weeye inaad afkaar aad kutub kala duwan ka soo akhrisay iska hor imanaysa inaad isbarbar dhigi karayso, inaad eegi karayso mid waliba waxa ku gaabinayo afkaarta uu cuskanayo kuwooda cudoon, aad mid walba eegi karayso oo labadooda isku barbar dhigi karayso. falsafada kutubta la akhrin marka qofku akhrinayo ayaa kamida. kutubta taariikhda laftigeeda maanta marka aad doonayso inaad qoraa waqooyi ka soo jeeda iyo qoraa koonfur ka soo jeeda ee taariikh dhacdo ka wada qoreen, marka doonayso inaad akhriso labada dhacdo labadaba waa isbarbar dhigaysaa, waad eegaysaa mid waliba daliilaha uu haysto, waxa uu ku xoojinayo doodiisan. akhriska noocaas waxaa la yiraahdaa syntopical reading. dhowrka arrimood ee ugu dambeeya kusoo gabagabeynaya waxa weeye qofku marka uu wax akhrinayo wuxuu u baahan yahay inaad either buug aad wax ku dul qorto, aad meelaha muhiimka aad dul highlight garayso. arrintan waxay muhiim u tahay
aan hadda tilmaamayo inaad macluumaadkan aad gadaal ka hayso aad bay u falxun tahay inaad buugaaga aad akhrisay macluumaad fara badan oo aad baadhay dabcan maskaxdaada way ku jirayaan wacyigaaga way saameynayaan way qaabeynayaan laakiin macluumaadka inaadan xasuusan oo aadan soo qaban karin soo rogi karaynin aad bay ceeb u tahay marka aad bay muhiim u tahay qofka in uu buug hadduu akhrinayo inuu buugga highlighting ku sameeyo ama qalinka uu haystaba uu ku xariiqo sadarada dhexdooda meelaha muhiimka ah ku goobaabiyo haddii aanu taa doonayn buugga inuu iska waxeeyo inuu buugga coverkiisa waxaa jirta coverka jaldi cad baa jira laba jaldi cad baa laga yaabaa buugga labadiisa dhinac inaad ka heli karaysaan jaldiga pageka muhiimka kuwa markaa ee macluumadaad ka heshay intaad ku qorto macluumadana ku dul qor buuggana sideedaba inaad waqtiyeysid muddaysid waqti u samayso waqtigaad akhrisay aad bay muhiim u tahay waayo qofku markuu wax badan akhriyo wax akhriskii markuu doonayo dhul dib inuu laabto waxa laga yaabaa inuu garan waayo meesha uu ka akhriyay marka buugga inaad muddayso kafarada ama jaldiyada cadcad inaad ku dul qorto buugga gudihiisa macluumada meeshaad ka heshay pagekaad ka heshay chapterkaad ka heshay iyo macluumad inaad ku horqorto waxaa laga yaabaa 6 afkaar 7 afkaar 8 afkaar inuu jaldiga kugu qornaado si fudud hadhow aad markaad eegtaba aad macluumadiisa degdega aad buug intaad soo rogto aad uga dhexeli karayso ama maaha kaararka yaryar agayga way yaalaan kaararkaas iyo kuwa ka waaweyn qofku intuu qaato inuu ku dul qoro buugagta u dhex gashto ama maaha qofku inuu notebook leeyahay أنا أقول لك سيدات بوجو نوت بوجا هي لا أو هذا محاضرة دقيقة هذا lecture كذا دقيقة هذا بوج آخرية يبا هذا جوا لسوي ما ده كل شيء كيسنا يعني حقوق فينا يعني أنشوفه بقى حنسقط هنا نوت بوجي أو حقوق قرطة مركا هوا حوي معلومات كذا آخرية أتكون حاسوسا كريسو أقوم تنضبر بأوبان تاعي دبر كده أنا وحكم ده ugu weyn ugu muhiimsan inaad qorto arinta labaad waxa weeye afkaartan aad akhriyayso isku day inaad ku xiriiriso si aad u xasuusato hadhow afkaar kale oo taqaanay ama sheekooyin aad hore u taqaanay inaad fikradan aad ogaatay inaad ku xiriiriso si xasuusta fog ay u gasho waxa kamid ah sidoo kale inuu qofka muthaqafka waxyaabaha muhiimka ah aqoonta ku hayn karaya ama aqoonta barakayn karaya waxa kamid ah macluumaadkan ogaaday ama aqoontan uu ogaaday inuu dad kale u sii gudbiyo aad bay muhiim u tahay waxa la yiraahdaa aqoontan inaad fahantay waxaad ku ogaan karaysaa inaad wiil yar oo 5 jira ama ilmo yar oo 5 jira ama gabar yar oo 5 jira aad u gudbisid haddaad ka dhaadhicin kari weyd aqoonta ma fahansanid marka inaad gudbisid laba faa'iido way leedahay in dadku wax ka faa'iidana way leedahay adigu laftirkaaga inaad isku tijaabisid waxaan inaad fahansan tahay inaad gudbin karaysid aad bay muhiim u tahay taa sameyn karayna aadan dad u gudbin karayna kamaradaada telefoon kamarada leeyin ku dub fikradan adigoo sharxaya raayada hor istaag iyo waxyaabaha la midka ah marka inaasan kusoo koobaya xalqadeena maanta way dheeraatay intaan xalqada 10aad aan u gudbeyno waxaan idin rajeynayaa khayraad fara badan waxaan rajeynayaa ka faa'iideen inta maan gaajaysan guli waa wali assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh